sareynta darajooyinka ciidanka waa imisa tirada guud ee darajooyinka ciidanka waa kuwee labada sarkaal ee kaliya darajada sareeya guud ka gaaray ciidanka Soomaaliya maxay ku kala duwan yihiin laba xidigle iyo dhame alifle iyo kormeere labaad isbatoor iyo gaashaanle muuqaalkan ayaa kaga bagan doontaan fadlan sii share garee muuqaalkan naguna soo bir xulashada badqabka maskax iyo jir ahaan gudashada waajibaadka iyo u shaqeynta qaranka waa mid ay ka wada sinaan karaan askarta balse waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa kala sareynta darajooyinka ciidanka ciidannimo askarnimo waa hawsha ugu adag ee bilaadan uu qabto si joogto ah askariga marka koowaad ee ciidanku uu qorto waxa uu noqonayaa dable haddii uu la yimaado aqoon howlkarnimo anshax iyo amar qaadasho waxa uu marayaa marxalad ay u gartaan saraakiisha ka sareeya taasi oo marka dambe uu ku guurayo heerkooda alifle laba alifle ilaa 3 alifle ayuu u gudbayaa qiimeynta koowaad kormeere labaad ilaa kormeere saddexaad ama si kala hadaan u iraahno 3 xidigle waxaa la isku yiraahdaa isbatoore markii askarigu uu soo gaaro heerkani waa sarkaal xigeen intaasi waa jaranjarada uu askarigu u soo marayo inuu noqdo sarkaal marka la mahadiyo hanaanka uu askariga ugu soo baxo shaqada inta uu ku jiro marxaladaha dable ilaa isbatoore waxaa loo dalacsiinayaa xidigle waxaa halkan ugu bilaabanaya in loogu yeero sarkaal ciidan intaasi kadib wuxuu ugu sii dalacayaa 2 xidigle waxaana ku xigta 3 xidigle markaan sarkaalku wuxuu gaarayaa darajada dhame sidoo kale wixii dhame ka hooseeya waxaa la isku yiraahdaa darajada hoose gaashaanle dhexe iyo gaashaanle sare waxaa la isku yiraahdaa sarkaalka darajada dhexe sidoo kale sarkaalka gaara gaashaanle sare waxaa loogu yeeraa korneel saraakiisha darajada sare ayaa ka bilaabanaya sareeya guute waxaa ku xigta darajada sareegaas oo sarkaal dhaafa uu yar yahay darajada ugu sareeya ee sarkaal Soomaali uu gaaro waa sareeya guuta inta taariikhdu xustana ciidanka Soomaaliya 2 sarkaal oo kaliya ayaa gaara darajadaasi si loo qaato ama sarkaal loogu xiro darajada sareeya guud way adag tahay qubarada aqoonta sare u leh darajo bixinta ciidanku waxay sheegayaan in darajada ugu sareysa ee sarkaal guud la siin karo sarkaalka dajiyay kaarta dagaal oo ku guuleystay inuu cadawga ka xoreeyo dhul ka maqnaa dalka sida gobolada jamhuuriyadda ugu maqan dariskeena darajada sareeya guud ma gaarin Allah u naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Bare madaxweynihii hore ee dalka oo ahaa sarkaal ciidan muddo dheerna dalka ku soo xukumayay balse waxa uu dalacsiiyay Allah u naxariistay sareeya guud Maxamed Cali Samatar 20kii Agoosto sanadkii 2016 ayuu geeriyooday Allah u naxariistay Maxamed Cali Samatar sarkaalka labaad ee darajada ciidan ka xirto darajada sareeya guud waa Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe sareeya guud Bashiir Goobe haatan waa jananka ugu sareeya ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxaa darajadaasi sanadkii 2016 u xiray madaxweynihii dalka Professor Xasan Sheekh Maxamuud